السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي أبشر حسن اشتفتم أنا أمنا محمد عبدي جنالك أبشر حسن اشتفتم على بإذن كل وذاقة برنامج الدول قار كود أرمها بالشدة قار سيكولوجيا أما علم النفسي iyo sheekooyin dabcan arrimaha bulshada ka turjumaya sheekadii guuleedna ay ka mid tahay oo hadda intii muddo aan wadnay sheekadu waxay noo joogtay maadaama aan rabo fiidiyogan hadda inaan sheekadii kusoo qaato sheekadu waxay noo joogtay guuleed oo da'dii 5 sano ah ku socda ayna ku adkaatay noloshii gurigii abti iyo ayeey uu la noolaa caruurtii walaalihiis ahaa iyo asagii aysan midoobin oo aysan u arag qayb iyaga ka mid ah ee uu ka yahay mar walbaba qof korsaar ku ah gurigii oo dadkii waaweynaa xataa aragtidii aysan maaragtay waxba ka duwanayntan caruurta oo mar walbaba asaga uu qof ku saa'ida un loo arko taasi waxay keentay guuleed inuu dareen ka qaado gurigii maadaama hadda uu aado maxaa la yiraahdaa dugsi oo uusan wali gaarin iskuul ama la geyninba wuxuu arkayaa caruurihii kale markay dugsiyada ka yimaadaan oo waqtiyadii 3 waqtiya maadaama Soomaaliya wax laga cuno caruurtuna dee caruur yaryar ay yihiin iskana gaajaysan yihiin wiilashuna badanaa ay ka baahi badan yihiin gabdhaha in guuleed uu arko mararka qaar ayadan waqtiyadii la gaarin cunada caruurihii kale haddii iyagoo gaajaysan uu asagiina la yimaado inay caruurihii kale markaa waxyaalo kale oo yaryar oo ka horeysa maxaa la yiraahdaa qadadii ama cashadii ama quraacdii la siinayo oo ay helayaan ama boorash loo kariyay ha ahaado ama rooti yar iyo xalwo iyo waxyaalo dee hooyadu ay ugu tala gasho ama ay tiraahdo war caruurta ha loo bubsiyo hala siiyo caruurta la siiyo inuusan asagu taa helin hadday ugu badato marmarka qaarkeed ummaddu isku hal ma ahane ama maalintaa hadba qofka wax maxaa la yiraahdaa caruurta u sameynaya qaabka uu u arka markaa inay ama wixii xoogaa wax badan yihiin oo kala qaybsamaa amaba qofku maalintaa qof maaragtay xag ilaahay ka niyadsan uu yahay in wax un dhacdhaca uu ka helo la siiyo amaba Soomaalidu il iyo waxbay aaminsantahay la yiraahdo ishiisa hala isaga reebo laakiin badanaa wuxuu arkaa caruurihii kale oo qolkii aabaha iyo hooyada ama qolkii barsada iyo fadhiga ahayd wax lagu siinayo oo maarkino waxyaalihii dee iyaga gooni u ah loogu geynayo asaguna markaa haddayba ugu badato wax yar inta la siiyo la yiraahdo halkaa ka bax ayeeyda dee waa ayeeyo oo labada dhinacba ayeeyo u tahay waana qof waayeela indhahana aan saa waxba uga arag badanaa guuleed ayeeydiis baa maaragtay lagu riixaa oo habreerta guriga dee madaxda ka ah oo abtigu qabo badanaa waxay tiraahdaa ku sheekaysaa xataa abtigu markuu weydiiyo guuleed iyo xaaladiisa iyo inuu waxay tiraahdaa ayeeydiis baa guuleed intaa maaragtay wax walbaba afka ugu gurayso oo maarkino guuleed ma aha waxay ka dhigtaa dee nin ma aragtay qof walba u dadaalayo maadaama ilmo agoon iyo rajay uu yahay cid u dadaalaysana ma jirtay afka unbaa maaragtay waxaa loo mariyaa subaga oo laga dhigaa nin wax walba haysta ayeeydu dabcan waxyaalo yaryar oo iska haysato oo maarkino ama loo keeno ama maxaa la yiraahdaa marmarka qaarkood haba dirsatee ugu badan waxa weeye inay maarkino baadiyahaas iyo dadkii ehelka ahaa jiray xagga ama subag ama malab ama oodkac loo keeno markaana familkoo dhan bay u qaybisaayo caruurta kale ayeeyadu u tahay dee wiilkeedii baaba dhalay oo caruurta wiilku badanaa waxaa u malaysaa dhaqankeena inay kaga dhow yihiin kan gabadha laakiin ayadu si cadaalad ah bay caruurta u wada siisaa oo kan wiilkeedu dhalay iyo maxaa la guuleed ma kala sokaysiiso guuleed wuxuu ku qasbanaanayaa inuu reerka gooni socod ka noqdo oo duurjoog ahaado oo waqtiga badankiisa markaa uu isku dayo inuu banaanka ku cayaaro oo banaanadiisaas iska maro inkastoo xataa banaankii caruurihii dariskii iyo maxaa la yiraahdaa dugsigii quraanka laftirkoodu ay u arkaan guuleed maadaama ay u jeedaan inuu caruurtii abtigiis dhalay ee isku guriga ku noolaayeen uusan qayb ka ahayn inay iyagiina aqbalin ay u arkaan
ilmadee magaalada xataa korsaar ku ah yaa magaalada xamar waana wax dhaqan oo iska jiray ahayd mar hadduu ilmuhu laga keeno ama tuulo laga keeno ama gobol kale laga keeno inaan dadka xamar degani aysan markaa u arkin inuu yahay qof la mid ah aynu dhahno badanaa waa dhooros iyo waa reer baadiye iyo waa ilmo baadiye laga keenay waa ilmo tuulo laga keenay waa ilmo gobol laga keenay yacni in loo arko qofka magaalada weyn ku dhashay ama ku koray inuu yacni ka sarreeyo qofka kale oo xamar laga dhigo yacni inay sanba gobolladaba ka mid ahayn ay ka sarreyso oo kale de waa magaalo madaxdii laakiin waa gobol iyada laftirkeedu laakiin saasaa dhaqan noocaasa ayaa magaalada ka jira runtii hadda magaalooyinka kalena waa lamid hadda Garowe oo kalaan mar tegay ama aan arko badanaa social mediada waxay isu arkaan inay magaalooyinkii kale iyagu maaragta wax dheer yihiin waana waxaa leeyahay sida yacni marba haddii magaalada magaalo madax loo magacaabo inayba isu haystaan yani inay dadkii kale iyagu wax dheer yihiin waana waa wax iska waa waxa meesha yani caqliga saliimka uusan qaadanayn calaa kulli xaal guuleed waxaa loo arkaa yani caruurihii kale xataa maadaama dee familkiisiiba ama ayba u jeedaan walaalihiisba inaysan guuleed u arag inuu maaragtay ka mid yahay iyagina sidoo kale laakiin marmar way jirtaa caruuro uu helo uu iskala ciyaaro baroonigaas iyo waxyaala saasa kadib markuu waayo wuxuu la ciyaaro wuxuu galaa guriga abtigiis iyo guriga ku dhegan meel yaroo luuqoo u dhexaysa meeshaas intuu iska fariisto iska ciyaaraa kaligiisa maaragtay uu waqtigiisa badankeeda kusoo qaata hadhowna ama markii la raadiyo la waayo ayadu tiraahdaa ilmihii yarkaa xaguu ka baxay in la soo helo ama mararka qaarkood asagoo iska muddo dhan iska maqnaa uu iska yimaado kadibna uu xataa ku qadab beelo ama ku casho beelo kadibna wariyaha asagiiba lagu sii qayliyo uu iska seexdo muddo wuxuu saa ku jiraba dugsigii waxaa kusoo darsamaya wiil yar oo markaa guuleed adigu 2 sano iyo bar wax saasi ka weyn oo Saalax iyo Bashiir oo sheekada bilowgeedii Cumar oo ahaa ama guuleed adeerkiis ay asxaab yihiin oo xaafadda wax ka degan xaafadda daris ay yihiin guuleed abtigiis laakiin dad iska soo xaafad laba guri isku soo horjeeda ma laakiin xaafadii wax ka degan yihiin gabadha Saalax oo qaba marka wiil ay habreer u tahay oo asagana maxaa la yiraahdaa hooyadii dhimatay baa loo keenayaa wiilkii bay dugsiga keenaysaa wiilkii iyo waxa isbaranaya guuleed oo asxaab noqonaya Cabdalla la yiraahdaa wiilka Cabdalla marka habreertiis howlo badan buu guriga uga qabtaa oo banaanka uga soo adeegaa bay u dirsataa dhuxusha loo diraa biyaha loo diraa maxaa la yiraahdaa waxa loo diraa yacni biyaha waxaan ka wadaa marka biyaha go'an in ma arkin oo markaa maxaa la dhahaa in sheeg gaar dameer iyo wax loo yeerto cajiinta makiinada cajiinta loo diraa dukaamada loo diraa oo wixii adeega familka u baahan yahay oo dhanba oo banaanka laga soo qabanayo uu qabtaa taa guuleed waxay u noqotay qof uu helay meel walba loo dira Cabdalla u raacaa wixii ay helaana oo ma arkin oo markaa way kala qaybsadaan ama xabadka rootiga xabadka mooska ah xabadka baradhada banaanada lagu gaday maaragtay lagu cuni jiray maxaa la yiraahdaa basbaaski iyo waxyaalahaas bay isaga qaraabtaan oo waxay noqdeen dad isku xiran laba ilmood isku tiirsan bay noqdeen muddo yar ka bacdi haddana sidoo kale guriga abtigiis guri ka soo horjeedo markaa boos banaanaha markaa farta laga qaado la dhisayo guriga xaafadda ugu caalamisan villa laga dhisay baa waxaa soo degaya saaxiibkii labaad ee adeerkiis Cumar Bashiir oo galabkii ay ka soo baxayeen Stadio Kon ama Stadio Muqdisho ma Stadio Kon ma Stadio Muqdisho cayaarihii gobolada ka socdeen saaxiibkii Bashiir gabdhihii ay meesha ku barteen gabadhii ka mid ahayd reer banaadiriga dadka cadcad ahayd oo uu dagaal dheer u galay gabadhaas inuu maaragtay barto oo guursado gabadhii wuu soo guursanayaa aroos maasha Allah baa dhacaya maxaa la yiraahdaa waa sheeko kale oo dheer iyadana laakiin gurigan buu maaragtay inta maasha Allah loo goglo buu ku soo guursanayaa shaqaale 3 shaqaale jooga waardiye 2 gabdhood oo kale oo shaqaale ah baa xaafadda jooga oo maxaa la dhahaa gabadhii markii lagu soo guursado banaankay waxay u aadaysaa honeymoon miyaa la yiraahdaa mise shahrul casal iyo wixii la oran jiray oo xaaskiisa banaanka ugu kaxaynayaa way imaanayaan
maasha allah waa gabar aad u yar gabadho waana gabar dadka gibil cadka ah laakiin conflict baa jira waayo Bashiir waa nin gobolada waqooyi ka soo jeeda la oran jiray ama hadda Somaliland loo yaqaano uu ka soo jeedaa wuxuuna la dhashay gabdho badan oo walaalihiis ah asay kaliya reerka wiilka ah gabdhahaasi marka maxaa la yiraahdaa dhaqan waxa iska jira deem ogta dadkii maadaama la kala lahjad duwan yahay runtii dadka reer banaadiriga ama reer xamarka ama cadcadkaana aysan badanaa ayaga laftirkooda jeclayn in ay isdhex galaan dadkan faradheerta loogu yeero faradheerta qaarkeedna ama faradheertkuna ay dadka kanba ayaga laftirkooda ay wax kale u haystaan in halkaa conflict uu ka jiro oo xataa guurka dee lagu kala carari jiro aan la israbin in saa la isu dhex galo Bashiirna uu yahay nin hore guur usoo maray oo 30 jira waa nin 30 jira hore usoo guursaday gabar ay family hoos isla yihiin buu qabay oo waliba walaalaheed ay asxaab sii dhow ay yihiin oo asaga gabdhaha walaalihiisna waa gabdho qaarkood niman madaxa qabaan qaarkood maxaa la yiraahdaa in ayaga laftirkooda ma aragta shaqeeya oo dawladda u shaqeeya gabadha xaaska ay kala tageen laftirka dawladda u shaqeysaa laakiin waa dad aad isugu dhow oo ma aragta isku xiran taana waxay keentay colaadin waxa imaanaysa gabadhan hadda uu soo guursaday in meesha colaad ka bilowdo reerkaas kala tagay ama xaaskiisii horena gabar baa ma aragtay baa jirta uu Saalax dhalay oo maxaa la yiraahdaa reerka hore dee xaaskiisii hore iyo asagu ay maxaa la yiraahdaa ay dhaleen gabadhaasi marka gabadha yar ama gabadhaas yar oo la yiraahdo Sagal oo markii hore hooyadeed markaa la noolayd laakiin hadda aabaheed muddo yar kadib markuu degay oo reer cusub yeeshay baa waxa loo soo wareejinayaa guriga aabaheed bay ku soo wareegaysaa qol kamid ah qolalka loo firaashaya waa gabar yar oo aad aabaheed u jecel yahay runtii Bashiir waa aaba aad u wanaagsan gabadhiisana maxaa la yiraahdaa yani ula dhaqma qaab sida ay tahay gabar yar oo princess ah marka badanaa markuu dibadaha aado wuxuu soo gadaa wax walba oo maarkino ay u baahan tahay ama dhar ha ahaado ama waxay ku cayaarta ha ahaadaan wax walba dibadda uga keenaa aabaheed si qurux badan baa loogu labisaa yani nolosheeda oo dhan waa nolol aad u qurux badan banaanka markay ku cayaarayso maaragta waa gabar oo maaragta laga ilaaliyo in lagu aabiyoodo oo badanaa shaqaalaha la socda ama shaqaalaha banaanka u fariisto ku ilaaliya markay banaanka bushkuleetigeeda ku wadato dhalashadeeda maaragta la dhigaa oo waa gabar kombola'aano iyo maxaa la yiraahdaa birthday loo dhigo waa gabar runtii nolol aad u qurux badan ku nool caruurta dee xaafadan ku noolna nolol aysan aqoonin iyo qaab aysan aqoonin ilmo u dhaqmaya weeye taasi waxay keenaysaa caruurtii oo dhan inay gabadhan yar aad u fiiriyaan xaafadoo dhan familkoo dhan baaba si kale loo arkaa oo famil dee nolol oo maaragtay aad u sareysa ku nool inay yihiin caruuraha xaafadoo dhan marka waxay jeclaysanayaan gabadhan inay maaragta la ciyaaraan inay qalabaadkan ay ku ciyaarayso bombolayaasha iyo waxay wadato iyo bugaagta iyo dee qalabaadkan dhane maaragtay kushiinkii iyo waxaas oo dhan inuu qof walba asxaab la noqdo oo uu dee maaragta nolosheeda uu ka mid noqdo marka Cabdalle iyo Guuleed badanaa adeeg baa looga soo diraa xaafadan way yimaadaan taasna waxay keenaysaa inay Sagal isbartaan oo Sagal ay asxaab dhow la noqdaan Cabdalle iyo maxaa la yiraahdaa Guuleed maadaama Cabdalle Guuleed ay maxaa la yiraahdaa Sagal saaxiibo la noqdeen oo banaanka markay u soo baxdaan ay la ciyaaraan gudahana ay kula ciyaaraan qalabkeedana bushkuleetiguba ha ugu maaragta khatarsanaadee ay u ogolaatay inay ku ciyaaraan oo wadwataano xaafadii dad caruurtii kale maxaa la dhahaa ayaga laftirkoodii waxay ka helayaan sumcad iyo waxay kaga helayaan caruurihii inay dhahaan dee gabadhaasay is yaqaanaan oo asxaab leeyihiinoo qaabkii aw loola dhaqmaya qaab ka duwan baa loola dhaqmayaa sumcadoodii baa kor u kacaysa qof walba ka wareysanaya caruurtii kale ka wareysanaysa ka agdhawaanaysa